إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوتنا كتابك الأربعون النسائية عن سوكرنا حديث كاللباطن يشنعيه باب بيان عظم حق الزوج على زوجته باب بيان عظم حق الزوج ننك حقي سوينا كيس عدين لعديه وباب ياهي على زوجتي حاسكي سكركي السنة وكل ياهي حقاس باب بيان عظم حق الزوج ننك حقي سوينا كوين ياهي وين كاس إن لعديه أيو باب ياهي على زوجتي حاسكي سنة وحقاس كل ياهي عن عبد الله بن أبي أوفى قال عبد الله بن أبي أوفى وحو يريء صحابي قال رسول الله رسولك إلهي أييري صلى الله عليه وسلم لو كنت أعطانا هالها آمرا مد أمري أحدا قف أن يسجدين أسجودا لغير الله غير كيس لا أمرت المرأة إسلامتا أمر لها أن تسجدين أسجودا لزوجها من كذا والذي الله بان كدارتي نفس محمد نبي محمد نفسديس بيده قعنتي سيكو جرته لا تؤدي إليسا قدنين المرأة إسلامته حق ربها ربي قد حقي سينيسا قدنين حتى تؤدي إلى إيكا قدته حق زوجها منك إذا حقيسا ولو سألها دو ويديست نفسها نفسديدا والحال هي إسلامتي على قطب sariirtay ku umuleeday ay ku sugan tahay lam tamnahu iskuma diido xadiithun saxiix xadiidkan waa xadiis saxiix akhrajahu axmed ayaa soo saaray wabnu maajah ayaa soo saaray wabnu xibbaan ayaa soo saaray xadiidkan wuxuu ka hadlayaa zawjka ama ninka xaaskiisa xaqa uu ku leeyahay xaqaasu xaq aad u weyn inuu yaho ilaahay weyneeyey nabigu sheegay weynankiisa sidaas darteeda gabadha muslimadda ah ee doonaysa inay adduunkana ilaahay xifdigiisa hesho aakhirana ilaahay jannadiisa iyo raallihanshadiisa weynay ku dadaasho xaqaas inay gudato inay aad ugu dadaasho weeye can cabdillaahi bni abi awfa عبد الله بن أبي أوفى قال وحيري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لو كنت أعطانا لها آميرا من أمرها أحدا قف حديثك سبب الورود أيو لها سبب الورود هذا كان سبب النبي يري صلى الله عليه وسلم سبب كاسنا وحوها النبي صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل كان معاذ بن جبل ayaa u yimid oo shaam ka yimid tabanka shaam aaday markuu nabiga u yimid oo nabiga u sujuuday sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ku yiri ma hada ya mu'aad wa maxay arrinkan mu'aadow markaasuu yiri ataytu shaam ayaan tagay fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa badariqatihim waxaan arkay ayagoo u sujuudaya culimadooda nimanka nasaarada culimadoodii iyo wadaadadoodii ayagoo u sujuudayaan arkay markaasaan jeclaystay yiri inaan ku sujuudo oo iraadaaba xaq u leh rasuulka allah wadaad nasraaniga intii loo sujuudi lahaa markaasaan nabigu yiri falaa tafcalu hayeelinina ma banaana hayeelinina nabigu markaasuu yiri sallallahu alayhi wasallam law kuntu adana halaha amiran mid amraya ahadan qof أن يسجد إنه سجود لغير الله الله غير كيس لا أمرت المرأة إسلام أمر لها أن تسجد إنه سجود لزوجها من كذا والذي الله أن كدارتي نفس محمد نبي محمد نفسه بيده قعنتي سيكو جرته
لا تؤدي إن سنقدنين المرأة إسلامته حق ربها ربك الحق سنقدنين حتى تؤدي إلى أي قدته حق زوجها منك إلى حقيسة إلا حق منك إلهي بواجبيي حدان قبضوا مركا منك حقيسي إلهي حقيسة ما قدنيسو nabigu marka sida ugu xeel dheeraaday fiiri arinta suu weyneeyay oo arinta aad ugu xeel dheeraaday wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam walaw sa'alaha gabadha haduu weydiisto ninku nafsadeeda oo nafteeda u baahdo wal xaal hiya gabadhi ala qatab inay ku sugantahay qatabka laba shay la yiraahdaa kabada ama heeriga yarka ratiga kuruskiisa la saaro waa la yiraahdaa heeriya oo jilicsan oo loo hoos mariyo oo ratiga kuruska kaliya leh waa la yiraahdaa qatab la yiraahdaa heeriga ratiga weey waxa kale oo la yiraahdaa qatab dhardhaarta gabadha la saaro markay umulayso ama sariirta la saaro oo carabtu dhardhaar amal sariir amal ay u sameey jireen oo ilayhin caruurka soo bixidiisa ayaa aad u fududaanayda markaas oo kale kaasna qatab la yiraahdaa labadaas ayna xadiidka ku fasirin cilmigu haday ratig kurkeed saaran tahay oo ratiga kuriskiisa saaran tahay haduu nafteeda ka dalbado weynaysan isku diidin haday sariirta umusha saaran tahayna haduu nafteeda ka dalbado weynaysan isku diidin maxay shaahidku waa ku xeel dheeraansho lagu xeel dheeraana gabadhu ninkeeda hadeeda nafteeda ay u diid maxay shaahidku waa intaas ee hada gabadhiyo foolanaydo sariir saaran ninku weynaysan dalbayn waa la dareemi karaa laakiin macnaheeda waa mubaalaqa ku xeel dheeraansho cadaynta lagu xeel dheeraana oo nabigu leeyahay war gabarey naftaada ninka u diidin oo adeec waa saas weey walaw saala haduu gabadha weydiisto nafsadeeda wal xaal hiya ala qatabin ay saarantahay sariirta ay ku umuraydo lam tamnacaysan u diidin hadith sahih wa hadith sahih akhrajahu ahmad ayaa soo saaray ibn majah ayaa soo saaray ibn hibban uu soo saaray ibn majah alla rabay meeshaas oo kale oo nusqooyinkii qaladka ah si kale u qodayeen ibn majah iyo wax kale qodayeen waa asaas waa qalad xadiidka marka wuxuu cadeynayaa weynanka xaqa zawjku uu ku leeyahay zawjadiisa waa xaq aad u weyn gabadha muslimadda marka inay xaqaas uga cabsato ilaahay oo ay dadaasho oo xuquuqdaas gudashadeeda ay u dadaasho taas ayaa waajib ku ah xuquuqdaas waxyaalaha ugu horeeyana waxaa kamid ah daacada gabadhu zawjkeeda waa inay adeecdaa gabadhu ninka u dhaxday oo la nooshay waa inay adeecdaa wax kasta oo uu amro laba sharti bisa la fiirina inay awoodo waxaysan awoodin hadduu amro haddii adeec lama laho ilaahayba qofkuma waajibiyo wuxuusan awoodin tan kale shaygaanu ma banaanya mise ma banaana hadduu munkar amro ma banaana inay adeecdaa waana noo soo socdaa baabkeedu shay munkar hadduu amro ma banaana inay ka yeesha waa xaaraan ilaahi weynaa halla caasiya ka imaanaydo marka ilaah halla caasiya nin iyo qof kale midna laga yeeli ma labadaas shay hadday arrintu ka maran tahay inay adeecdaa waajib ku ah shaygii waa ay awooda munkarna maaha khalaas labadaas sharti bisa laga fiirina waa inay adeecdo waa waxyaalaha ugu horeeya ee gabadhu la rabo muslimadda inay ku dadaasho waa waxyaalaha jannada ilaahay ay gabadhu ku galayso waa waxyaalaha jannada ay gabadhu ku galayso oo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam uu yiri idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwab aljannati shi'ti nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadha shanta salaadood tukata bisheeda ramadaanna soonta farjigeeda xifdido zina iyo qurun ka fogaata zawjkeeda adeecda waxaa lagu yiraahdaa aakhiro jannada albaabadeeda mid kale adigu rabta ka gal mid alla midka jeceshay ka gal marka ninku waa jannadaadi waana naartaadi daad adeecdo wanaag kula noolaato waa dariiqa jannada ku geli lahayd haddaad caasido ka daba wareegto dhibto waa dariiqaad naarta ku geli lahayd xadiidka imaam axmed ayaa wariyey sidaasoo kale nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin maatat wa zawjuhaa canhaa raadin dakhalat iljanna gabar kastoo dhimata ayadoo zawjkeedii raalli ka yahay jannada allay gashaa
imaamu tirmidi ayaa sunankiisa xadiiska kusoo saaray gabar kastoo dhimata ayadoo zawjkeedii raalli ka yahay gabadhaasu jannada ilaahay gashaa marka waxa ugu horeeya gabadha la doonayo inay zawjkeeda ku dadaasho xaqiisa oo xuquuqdiisa ugu horeeya waa inay adeecdo waxaa ka mid ah xuquuqdiisa inay isku qurxido inay farxad gelido oo nadaafadeeda quruxdeeda ay ku dadaasho inta sharcigu ogol yahay xuduudda sharcigu ogol yahay nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam xadiis nasaai uu wariyo wuxuu yidhi inta la weydiiyo la yidhi ayu nisaa khayr dumarka yaa u khayr badan nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam allati tasurruhu idaa nadara wa tudiiquhu idaa amara dumar waxaa u khayr badan gabadha ninkeeda hadduu fiiriyo uu ku farxayo farxad gelinaysa waa gabadh nadaafadeeda quruxdeeda ku dadaalayda meesha gabdhaha xunxun markay baxayaanay magaalada aadayaan ay quruxdooda banaanka soo dhigaan oo dahabkooda muujiyaan oo ay muujiyaan quruxdooda oo ragga islaameed ay muujiyaan oo dhaqangaalaadka ay ilaahay ka digay samaynayaan markay guryahooda joogana ay eber iska dhigayaan dukaafad iska dhigayaan dhaqankaas waa dhaqangaalaadka laakiin dhaqanka gabdhaha muslimaadka ah waxay tahay markay gurigeeda joogto inay isqurxido nadaafadeeda carafteeda sharafteeda muujido markay baxaydana ay is-asturto oy quruxdeeda qarsato sidaas weeyaan marka xuquuqda uu ku leeyahay ayay ka mid tahay xuquuqda uu ku leeyahay ayay ka mid tahay xuquuqda uu ku leeyahay waxaa ka mid ah inay xifdido sirtiisa maalkiisa gurigiisa carruurtiisa inay u xifdido ay ku dadaasho carruurtiisu inaysan dayacmin gurigiisu inuusan dayacmin asaga sirtiisa inaysan faafin maalkiisa inuusan dayacmin inay ninkan xifdido sirtiisa maalkiisa carruurtiisa iyo gurigiisa sida rabbulcaalamiin uu yidhi faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah gabdhaha wan wanaagsan ee saalixaadkaahu ilaahay yidhi waa kuwa adeeca raggooda waa kuwa xifdiya marka ninkoodu ka maqan yahay xifdinta ayagaba ilaahay xifdiyey ayagaba ilaahay baa dardaarmay gabdhaha alla xifdiyo ragow gabdhaha xifdiya hadday idin dhibaan u sabra haddaad qalad ku aragtaan u dulqaata war ilaahi weynaa idinka dardaarmay oo ragga amray xifdigiinna allahaas dartiisa u xifdiya raggiinna idinkuna marka xuquuqda uu ku leeyahay marka taasaa ka mid a sirtiisa inaysan sheegin maalkiisa aysan dayicin oo ay xifdido taas ayaa ka mid ah xuquuqda uu ku leeyahay waxaa ka mid a inaysan dhibin inaysan ka daba wareegin aysan dhibin aysan rafaadin aysan waxa weeyaan muran iyo shar ku kicin mar walba ee gurigu uu noqdo guri markuu yimaado uu ku dego oo uu ku nasto oo uu ku raaxaysto oo uu farxad ku joogo laakiin hadday gaarto nin baa yidhi gabadhan waxay ii dhashay yuu yidhi 12 wuxuu yidhi habeenkii guriga maalinkii o dhan wuu shaqeeyaa maalinkii oo dhan wuu shaqaynaa laakiin habeenkii wuxuu yidhi intay ka hurdaydo ma imaan karo haddaan imaado iyadoo soo jeeda waxa weeyaan kabtayda kor loo tuura kabtayda kor loo tuuraa wy marka wuxuu haddaan shaqada ka soo raaxo meelahaanan fadhiistaa intay ka hurdaydo markay hurdo iyaduna way ogtood albaabka xirimaya dhagax yaray igu tiirin khalaas markaasaan tartiib yay hurdayn inta soo galo aan istuura wy sababtoo ayadoo soo jeeda haddaan imaad kabtayda kor loo tuura ma qofkaasa qof khayr le ya bal cajaa'ibta fiiri ummadda banu aadamku meeshuu gaarayda shartiisu ya marka waxaa la rabaa gurigan ninkan markuu yimaado gurigu ku nasa lahaa oo hawshii iyo dhibkii iyo daalkii uga bixi lahaa inuu noqdo sidaas weeyaan gabadha dhibta ninkeeda waxaa naclada xurulxinta nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu tirmidi wariye xasanna uu ka dhigay wuxuu yidhi laa tu'dii imra'atun zawjaha fi dunya ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri lciin laa tu'diihi qaatalaki illah gabar kasta oo zawjkeeda adduunyada ku dhibtaa waxa weeyaan xaaskiisa oo xurulciinta ka mid ah nin hadday wanaagsan weeye so uma jeedo waa nin xurulciinta wax ku leh midaasaa mujrim kalaa haddee lagama hadlayaba ninkaas xaaskiisa xurulciinta ah waxay tidhahdaa laa tu'diihi ha dhibin qaatalakillah naclad allah kugu dilay ha dhibin fa inamaa huwa cindaka dakhiil marti buu ku yahay agtaada yuushiku an yufaariqaki waxaa soo dhow inuu ku soo faaruqo oo annaga xaggeena usoo gudbo ha dhibin ilaahay naclada kugu dilay ay leedahay marka nacladaas xurulciinta ayaa ku dhacaysa gabadha zawjkeeda dhibta
marka gabadhaha mu'minaadka ah waa inay dadaalaan oo xaqaas gudashadiisa ay ku dadaalaan باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع باب لعن الملائكة هذا كان باب لعن الملائكة ملائكة على الدين أي باب ياهي لمن قبر أيين على ملائكته تهجر كتكت فراش زوجها من كذا قبشيسا حتى تصبح إلى كوى بريسته أو ترجع أما إنك كذا وصل الله وطيرها اللي قريسه باب لعن الملائكة هذا كان باب لعن الملائكة ملائكة لعنة أين على ذيسه أي باب كان أباب يوكاد الله لمن قبر أين على ذين تهجروا كتكت فراش زوجها من كذا قبشيسة حتى تصبح إلى كوى بريستين ملائكة لعنة كردين أو ترجع أما يمكن وصل لعبته أو أي رالي قريسو باب كان وحديث كصوص عضا معنيه ساء وهو كهذا ليا ننكا قبضا هدو دونه يقبش اسكو قبل إنه يكون سيحضان وأي قبل ديده وأي كعرته قبشي سكتبته ملائكة يامن على ضيسة وعلى ربائن قبش الله سيحته أو أي رالي قريده hadday marka meel kale seexato iyadoo araysan oo ninkii ka tagtay malaa'iktu way nacaladaysaa ilaa ay ninkaas ka raali garaynayso عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي وحي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة إسلامت عبدي هبينكي بارسو مهاجرة حالة أي تايمت كتكتي فراش زوجة ننكي دا قبشيسي gobashii ninku ku seexanayay oo uu doonayay inay la seexato ayadoo ka tagtay meel kale haday ku bariso la'anad hal malaa'ikatu way nacalada gabadhaas hadda malaa'ikta lacnadeeduna waa habaarkeedii naxariista Allah ka fogeeyo aylaada waa malaa'ikta Ilaahay oo aan weligeed dambaabin waa la aqbalaya habaarkeeda hatta tarjica ila gabadhaasu ay u soo laabato zawjkeedii oo ay raali garaydo muttafaqun alayhi حديث كان البخاري يا مسلم ايا اسكو وافقين وحديث ثابت حديث كان marka wuxuu noo cadeynaya dambiga ay leedahay gabadha zawjkeeda gobashiisa ka tagta oo diida inay la seexato ayadoo wax cudur daaro sharciya haysan taas marka dambiga ay leedahay ayuu noo sheegaya xadiidku waa in malaa'iktu lacnadayso dunuubta waaweyn calaamadaha lagu yaqaan kamid lacnadu dilayra dambigaas qofka sameeya waa mal'uun wala lacnaday waxay calaamad u tahay dambigu inuu yahay dambi aad u weyn inuu yahay salaadeedana ilaahay ma aqbalo gabadha maqaalifada ah oo zawjkeeda ku kacsan oo dambi la'aan iyo cudurdaar sharciga iyadoo haysan ka soo horjeeda ee ka tagta ilaahay weyna salaada kama aqbalo nabigana sidaas adeeyay sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri ithnaan la tujawisu salatuhuma ru'usahuma laba nuuc oo dadka kamid ah salaadoodu kama gudubto madaxa laba nuuc oo dadka kamid ah salaadoodu madaxooda kama gudubto abdun aabiqun min mawalihi adoon ka dhuntay dadkii iska lahaa hatta yarji'a ila usoo laabto wa imra'atun asad zawjaha إيا إسلام من كذي عاصري حتى ترجع إلهي أصول لابطه إلهي وينا سبحانه وتعالى صلاة كما أقبل الله راس إلهي وينا صلاة كما أقبل حديث كاسن حاكم أيها وريي مركا صلاة دي إلهي ما أقبله مركا قبضة مسلمات دي إلهي كبغضه وأي أغاته إن الصلاة كأنسحين ومعناه وحنو لكي أن لقى أقبل ما يلقى أنسحين من فرق يوم بحيه معناها ويتكن هذا رسوق الله يمين لكن واحد كده كلمه وي لا اقبل ما ساسا لو رجيدا باب تحريم كفران العشير هذا كان باب تحريم كفران العشير منك الله ابال كدعو حرامين تشرع وحرامتنيي بابكي كهدلايي ويه باب تحريم كفران العشير منك الله ابال كدعو oo laga abaalka dhaco nimcadi iyo abaalki iyo wanaag uu sameeyay baabkii ka leeyay baabkaana
باب كان حديث كصوص عضاء أيول معنيه سعدينا وحنا كهضليا قبضنا ننكيدا وناق وقال إنيسان كأبال كدعين أبال كدعا سنوى دنبي وين أو كبيرة أو قطرة أو نار تلقو قلو عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد وحالي تسير النبي أن نار نارتا يا إلهي تسير فإذا إسلام مركب أكثر أهلها بدك كجرة كوة أقبضا النساء ودمرك يكفرنا دمرك ويكفريان قيل وحالي أن يكفرنا بالله ما الله يكون كفريان قال النبي يكفرنا العشيرة زوجك ويكون كفريان ويكفرنا الإحسان أبالك الله قالك أبالك دعاني يكون كفريان لو أحسنت عدد وراك السميد إلى إحداهن الدمر كميت الدهر الزمنك ثم رأت أي أردت منك حقاك شيئا أي لبسطه قالت وحيريضا ما رأيت منك حقاك كما أرى خيرا خير قط ورقي إبسكي وحقيرك وما أرك سيداس أي يكون هذا متفق عليه بخاري يا مسلم الحديث كالله يسكوه فقان العشير والزوج عشير وحالي رضا منك عن ابن عباس عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار تليتو حديثك سبب الورود أولها سببها هذا كان نبي يري قرح ذا المدوراتي وقت النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي وأصحابتي ستوشيي صلاة الكسوف كاها قرح مدوراتك نبي صلاة مركو تاقنا جنة يالله تسي نارتنا والله تسي markaas saxaabadu waxay arkeen nabigoo horay u dhaqaaqo sida qof gacanta wax ku soo qabanaya gacanta taagay haddana waxay arkeen nabigoo gadaal u digay markii salaadii laga baxay ay weydiiyeen waxay raadaan rasuulka ilaahay waxaan ku aragnay adoo laacaya shay sida qof wax soo qabanaya kadibna waxaan ku aragnay adoo gadaal u laaftay arintaas maxay ahayd nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inni ra'aytu al-jannata fatanawabtu unqudan jannadii aan arkay geedaha iska raaraca ee bislaaday miraha bislaaday laan weyn oo rucub ah oo saas u laalaada aan doonayo saas inaan u soo qabsado balaanta iska goosto nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam walaw asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya hadan rucubtaas yartaa laalaada ee iska bislaatay soo gooylaha adduunka intuu nool yahay dhan ay ku filnaale walaanta kaligeed ee halkaas ka laalaada boqolaal iyo kumanaan in ilaahay garanayo oo noocaana kala laalaado kala duwan jannada markaasuu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam naartiyaan arkay naarta kuleylkeed markaan dareemaha marka gadaal u soo booday naartiyaan arkay markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam falam ara manzaran kal yawm qad afda'a waligay ma aran arag muuqaalkan naarta arkay muuqaalkan fool waligay ma aran arag muuqaalkan maanta arkay muuqaal ka foolxun markaasuu nabigu xadiidkan intaan hadda noo qoran uu yiri uriitu naartiya lay tusay faydaa akharu ahliha isla markiiba dadka ku jira kuwa ugu badan annisa wa dumarka na'ud billahi min annar marka sababtii nabigu sheegay wuxuu yakfurna dumarka waxay naarta ku galayaan waa kufriyaan qiila waxa la yiri ayakfurna billahi ma ay ku kufriyaan gaalnimo miya قال النبي وحده يكفرنا العشيرة زوج كودي كفريان وكفر أبالك دعا لولا جيدا أبالك دع زوج كودي أبالك دعان ويكفرنا الإحسان وناق الله سميانا وأبالك دعان وناق الله سميانا وأبالك دعان كما الشكريان وكما أبا القدام نبي وحده صلى الله عليه وسلم لو أحسنت هداد وناق السميضة إلى إحداهن الدمر كمد الدهر الزمنك وقت قال ولا نوشين ودن حداد وناك السميد هذين يا مالك ثم رأت أي أردت منك حقاك شيء معناها شيء أي لبسطه أي هذا مالك هو أردت إلا مالك ما هنين كانوا لم تركي سقلب واكاي معنا هذا هل شيء أي لبسطه بي أردته قالت وحيريضة هاي ما رأيت منك خيرا خيرك ما أردت قد ولدي ولا الشيء ده وحوي وخيرك ما أردت متفق عليه البخاري ومسلم أي حديث كيسوا فقين عشير وحل هذا الزوج منك مركا دنبك قطرتا النار تلقو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم لما شيء أيو كنت المامي وقبضنا من كيدا أبالك دعنا نبي كنت المامي أوكلا
وحويان إن إحسانك يا سمفلك سيدي سبا لغا أبالك الدعو وحيمك حديثكو ندريسين يا نوع عطين يا نارت وشيء مخلوق وأبوران وحد الجيرة إلهان كما قلنا نبينا هو أركي صلى الله عليه وسلم ذكر أبوبا ونقل الدمر كامد أن نعوذ بالله من أهل النار ومن النار وحوال المركة حديثكو وحو عطين يا صدبها كينا يوحا كامد الدمر كعادفة دورو فضل مركي عرودان مركة اسمها نكران قبضوا مركي عرودتو وين النفتي ذا حريدان وعيسان كوهد من كلمة نار وكامتا وحوال قالت هدي مثلا زوجك أدكو أركتو هوري أدوانات وأركي جرتي صبر دول قادو ما تشيرو نين أنقلب لهين الدولك صبر أو دول قادو لكن هدي درينكو كاعد كادو وعرينو كابتناتو وواحد ربطو اسكاقا هذا الشو والمصيبة كالي هكا اللي الكودان وحا لقربا ما دام الضمر كدبي عدو دي أي كميتها عاطفة فوت ومركي عرودان أيسان إسهالاك كريم ضمرك إنيسان لقو قوصا وأي كالصبران ومركي عرودان أيسان جوابينو waxay ku hadlayaan dad aysan u aabayeen shibka yiraahdaan sababtoo ah dumarka waxa muuqata markay caroodaan inaysan is-eli karin waxa laakiin la rabaa naar weeye waxa carabku ku geynaya nabigeena yiri naarta carabkaasa dadka geeya marka waa in gabadhu muslimadda ah markay carooto ay ogaato kelmadahan ka soo baxaya inay kelmadihii naarta geeylaha oo qatarta aha oo shanlayta ka dambay doonto oo marka ay is-elido oo nafteeda ay ka adkaato qofka geesiga waa qofka markuu caroodo is-eli kara qofka caaqilka waa qofka markuu caroodo is-eli kara baabun hada kan baabu waa baab idaa daca zawju ninku hadduu u yeero zawjatahu xaaskiisa ilaa macsiyatin macsiya hadduu ugu yeero dembi ugu yeero fa calayha waajib waxaa ku ah an tamtanica inay ka joogto walaa tujiib aysanna ajiibin باب هذا كان باب وباب إذا دعا الزوج منك هدو غير زوجته وحاسكيسا إلى معصية ذنب فعليها قبل كركيده وحا صارا أو واجب كوا أن تمتنع إليك جوبته ولا تجيب أو وحا كدوري أيسان كأجيبين وكييرين زوجك هلا أبداعو daacadiisa jannada lagu galaa marka la leeyahay xagaylaaba waa intuusan alla caasi ku dhihin qof kasta kaligiis ma ahan cid kasta oo ilaahay amray in la adeeco daacadiisu xagaylaaba cid kasta oo ilaahay amray in la adeeco daacadiisu xagaylaaba waxay xadkaas uu yahay waa intuusan alla caasi ku dhihin مثلا إلهي وحو أمري إلا أضيعه والدك أبيه هاي إلهي وحو أمري إن قبضه زوج كذا أضيعه إلهي وحو أمري إن أضانكو وسيدك سأضيعه وحا إلهي أمري ومضى الشعب كان مدحوينه هذا المسلم كإنه أضيعان ضد علماء إلا أضيعه قرآنكو أمري لكن كل هل أضيعه ذاتك لليه قيد إليه حدود إليه مطلق معهم وحو وضح لغو أضيع إدلي يرمجرته وأنا هين الله يرسول كيسا وحو البلغو أضيعه لكن انت كلو كسو أهرتي وحو لغو أضيع أي حاجة إليه وقرما وإنت إله عاصل لغو بهم ماك هدي أتحكس وإن أتقرأتها نبي نصوبا صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم يوريان وقل السمع والطاعة على المرء المسلم إنه قفك وحمق له أو أضيعه وحواجب كتاهي قفك مسلم كا فيما أحب وكره وحو جعليه يوحو نفسنا يبوا إنه أضيعه ياره ما لم يؤمر بمعصية وإنت معاصي الأمرين فإذا أمر بمعصية هذه معاصي الأمر فلا سمع ولا ضع وحلقة دقيسة وحلقة يلا مجر تقفك معصي إلهي أمره الله عاصيه لقد دقيسة ما يؤابه لقد دقيسة ما هويه لقد دقيسة ما زوجك لقد دقيسة ما مدحويني لقد دقيسة ما علماء متكمدة إطلق يلا الله عاصيه مجرته إطلق يلا مجرته حديث البخاري مسلم وريه نبي قوليه صلى الله عليه وسلم إنما الضاعة في المعروف وحلقوا الضيعة ووناك أبا الله الضيع هويا الله الضيع قبل سيد كذا الضيع أدونك سيد كذا الضيع شعب إمام كذا الضيع هلا يسأضيع علماء الله الضيع
كل قد واحد دينتو أمرتو ضاعا ضاعا ووناك إيه إلهي هلا عاصيو قفنا لغا يلي ما قفنا ما لغا يليو ما بنانا إن لغا يلو قف إلهي عاصي ما لغا يلي كو سو ما جيدين باب هذا كانوا باب وباب إذا دعا زوجه منكو هدوء يرى زوجته وحاسكيسة إلى معصية ذنبي فعليها قبل كل كذا وحا صارنا واجب كوها أن تمتنع إلى الكتشوك ستو ولا تجيب إيسان كييرين ذنبكاس عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أن امرأة إسلام تو من الأنصار كميطة زوجت ويقوردي ابنتها قبل ديدي أيضا بحضي فتنعض شعر رأسها فتنعض واحد باطي شعر رأسها مدحيدة تميهي باطين تجير كل عضي فجاءت إسلامتي وحي أتمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك أرنكاس أشيكتي له النبي فقالت وحي نتري إن زوجها من كيدي أمرني وحي سوء أمري أن أصل تنكر إن كل إليو في شحرها تنتيذا فقال النبي لا هيالي إنه شاني يقاتل لعنا والا على ذي الموصلات دمرك تنكر كل إليو عن عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي أن امرأة إسلام تو من أنصار كميطة زوجت ويقوردي ابنتها قبل gabar ansaarta kamid ah ayaa gabaray dhashay bixiso nin siiday fatama'adda sha'ru ra'siha fatama'adda waa daatay way fatama'adda waxa daatay sha'ru ra'siha madaxeeda tinteedii gabadhi xanuunanta ku dhacay aatintii jajabtay daadatay fajaa'at gabadhi hooyadeeda u timid ila nabi sallallahu alayhi wasallam fajaa'at hooyadeeda u timid ila nabiga sallallahu alayhi wasallam فذكرت هو يدي أشيكتي ذلك أرنكاس له نبيك قبل دي أنين أقوريي قبل حنورا كدعي تنتي دي دادتي تنتي وقارنتا تنتنا قروحنا قبل دي كميت قروحنا وحيالها قورك ونقيالكي ساي كميتا وضدك اسكو سوچي دو استحلايسية قبل تنتي دون يدرتين وقروح مركا قبل دي تنتي وكاتشة شبتو ودادتي ساسي نبي أشيكتي صلى الله عليه وسلم فقالت وحي تري إن زوجها ننكذي أمرني وحي سوء أمري أن أصل إن تنكذي كو إليو في شعرية تنتيذ إن تنكذي الله كو إليو وقبرت من بيح لقات لكو أيضا تنتيذي قارنته ساسو أمر كو سوسيتين قبلوا وحويين قروح يضا إذا ما استرناته تنتها الله سوء إليو تنكذي فود الله سيحيري كاسات من بيح لقات لكو ساسو سوء أمري فقال النبي لا هكيين إنه شان يقتل لعنا والله على ذي الموصلات الضمر كتنت حريرية قبرك كتنت إذا تنكو حريري ده أصاص حريري ده وقبر ملعونات وان علقبتها مدة تنت إذا الحريرين أنا وان علقبت متفق عليه الحديث كالبخاري مسلم أيها سكوا فقط لبعض موريين تمعضة معنى يقولك يا سقطة وان يقولك كدعي مركز يري أصل في شعرها أصل في شعرها وي أصل وأن حريرنا في شعرها معناه الوحي طاي أزيد فيه تنتي ينكسي يدينا من غيره تنكر ينكسي يدينا صاصوي أصل معناه الوحي لرجل في شعرها تنتي إن انكو حريريو أي أزيد إن انكسي يديو فيه تنتان من غيره تنكر ساسا لرجل حديث كان مركع قاعدة مهمة أيو قفك مسلم كاسينا وحي طاعي قبضة من كيدا أضيع مركع لليه كمد معه وحي كو أضيع إذا هدو سوء أمره إلهي وحلو عاصنا وحي إلهي لو عاصنا فليه تنتالا تنكر كو إريري وحاران مبنانا وحالله وحي شرعي الديدي هدو إلهي فنح وإنا ديالا طلبالا الكوضة كوري صوفيه كالفوقيه حاران وي وابن لن على ذلك وملعونات قبل فنح اسكو ياشا ان الهي ييري haduu yiraahdo timaha sunniyaha oo indhaha korkooda ku yaala waa inaad qayb ka xirtaa oo bil yar ka dhigtaa waa malcuun asaga ayadana haday ka yeesho alqabtay noqonay waa xaaran ma banaana haduu yiraahdo meelay joogaan maxram aan soo safar ee ii imow ma banaana waa dambi ma ka yeelayso
ما كيليسو محايل محرم واجب وحيلا محرم كوا واجب إيه إما وكالة إيوه أو حدين كلا قف كلا إيوه إيه صادر حدود اللي كمان قد بكراء وين إساس أقول شيطان هدو إلى بقات أرض إيه صادر ومطيب من الله قصة اللي جبرنا وين ترى ما بنانو دينارا كعب سنة قصة قادمة دو إلى مركز سجار كإيه صاشد ودنبي إلهي نوح إليه ولا تعاون على مثل العدوان دنبي جاي حد جذب كيسكوك عن سنينا وين ترى ما بنانا كأي يرمى هدو إلى رمالين رمضان أنا سكافرنا ما ترى حيسنه وين ترى ذا ودنبي يكبائر هم من أركان الإسلام أن إحنا كجبرنا ما يريو هدو دور إنه وجع الموضوع مش إلهي حلالين مالا حين وين ترى ما بنانا وأنا على قدر مكساسي لما يريو كل وقت الله عاصنا وين سنك أقبلين دو إلى صلاة هو كائن وقت كان أنا سكتشي فنه صبح ديولا تشوجو وشمت صلاة واجبك وين ترى مية وواجب وحق إلهي على كل حال وحكستا وإلهي أمري كفتك هدو إلى وين سكيرين وحكستا وإلهي حرام تنميي سنة هدو إلى وين سكيرين وحكستا قاعدين تسوين كدقاته وإلهي أمري وواجب هدو إلى واجب كان سكدا وين سكيرين وإلهي حرام تنميي هدو إلى رستمينا وين سكيرين وانا ارين aad u muhiima gabadha muslimada inay garato miisaanka ninkeeda maxay ku adeecay maxaysan ku adeecay duu yiraahdo wad madowdahay si soo cadee weynaysan ka yeerin ay tiraada ilaahay sifadu noo abuuro la bedela wa amal shaydaan marka ka yeerimayo waana mal'uun qofka bedela qaabka ilaahay u abuuray iyo dumarka is cadeeya mal'uuniin weyn xalaqadayaal ah oo shaydaan adeecay rabbigi abuurayna caasiyay amal shaydaan ay qaateen شيطان بادار كمري ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله وحيله شيطان ليه بالله waxa ay waa amar inaan siiyo dadka oo ay marka qaabki Allah u abuuray bedelaan marka waa gabar shaytaan raacday rabbigi abuurayna caasiday marka haduu sidaas ninku yiraahdo amro xataa ma banaana inay ka yeesha wax kasta oo ilaahay xarimay lagama yeelo idna baabun hada kanu baabu wa baab la yajusu ma banaana للمرأة إسلام تهبة إلي وحبحضه أو عطية إلي بحضه في مالها مال كده إلا بإذن زوجها من كده إذن كي سماهانه باب هذا كانوا باب وباب لا يجوز أمبنانا للمرأة إسلام تهبة إلي بحضه أو عطية أما أي سيدوقف في مالها مال كده إلا بإذن زوجها من كده إذن كي سماهانه إوان كان حديث كصوص على معنيه سويه إوان كان وحول معنيه سويه قرب سيدا منك أقدرينيسو سيدا يتحقرينيسو حتى مالك إسكايرها إسكاير ميكيس كم أيضو أي إسكايرها منك وويشنا وكنت شنا وكو حسابتنا ما دام وحولا مال كده ورجينيو مركي قفر قرئنا سيدا غبطو وغا وين لا تشطا وإلي ترادا haddee hantidayda qaybtaas oo feedalan siinayaa ogow oo ay tixgelida marka inay qof siido ayadoo la tashan ma banaana uu shiiqu leeyahay laakiin mas'aladu sidaas ma wada ahan culumaduna saas islaama ogola laakiin bal xadiidka aan laqbayno an abdullah ibn amr ibn aas an nabi sallallahu alayhi wasallam qala nabi gaayiri la yajusu uma banaana للمرأة إسلامتا أمر في مالها مال كده لا يجوز أمبنانا للمرأة إسلامتا أمر أمبنانا في مالها مال كده إذا ملكها دون ملكي زوجها من كده اسمتها نكاحي ده عن عبد الله بن عمر بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي غيري لا يجوز أمبنانا للمرأة إسلامتا أمر في مالها مال كده أو كما تصرفي كرتو أو ما معمولي كرتو إذا ملكها دون ملكي زوجها من كيدو اسمتها نكاحي ده إيه وإني لا تشطى صحيح حديث صحيح وحديث صحيح أخرجه وحي حديث كان صوصاري أحمد والحاكم روا صوصاري والنسائي روا صوصاري وابن ماجه نواسو صاري وزاد وحو كسياديي إلا بإذن زوجها ننكيدو إنو إطمم ماحانه سكر أمام مولانيسو والنسائي وحو كسياديي
بلفظ هبة لفظ هبة إيه ولفظ عطية بدلا من أمر حق أمرك ما أسورين أصابه إيه وحوين ما هبة كرتو ما بحي كرتو ونسي أولي وزاد وحو سيادي ابن ماجه إلا بإذن زوجه أمركم على مال كذا إلا زوج كذا إنه إتمام معهاني والنسائي وحو سيادي بلفظ هبة ما هبة كرتو ولفظ العطية قف مصري كرتو بدلا من أمركم على هميشه كورنتاي هذا الحديث كان مسألة علماء ويسكو قرافين العلم قبل كم الحديث كان قاتل وحي لهدين قبل حديث زوج أيالتو من قرسته مال كذا أيضا من كذا لا تشن ما بحكرته وين من كذا لا تشطها مركز بحنايسه وين من كذا لا تشطها لكن علماء أكثر كذا الجماهير العلم وحي مرين قبل إن من كذا لا تشطها وصنه وصيبه فيها وانا سيده حديث كانوا شيغيو لكن حاران كما اهان احاديث تنوى لا شرعيه وحان الله هي ادله aad u fara badan oo cadeynaysa gabadhu maalkeeda inay maamula karto iyadoo ninkeeda la tashan adille aad u badan la haya marka adilladaas maadaama la hayo hada adillada waa in lagu wada dhaqmaa xadiidkana waa in la yiraahdaa wal karaahiyo waa laga fiican yahay inay iska bixida maalkii ayadoo la tashan إلا وهشنا مالك لكن هذا دعوة أيضا لا تشر إلى بحضه معمول كاس ومعمول صحة حين ملكي أيضا عليه وهذا يتهي قبضه قبر وأن سفيهات أحين إلا قفك السفيهة مالكي صدقينه معمول الله ما أقول ألا بديدي لكن هذا يسن سفيهات أحين قبر مالكي صح ومعمولك أيضا أيضا لا تشر ومعمولك جماهير العلم ساسي مرين سيداس أي جماهير تمرين عن صوابكيه إمام البخاري تصالح كتاب كيسا صحيحة باب وكو قريبا أقول صحيح سن كتبت اللي في قرآنك كجبال قولك كوركيس انت كتاب يا كتابك أقول صحيح سن إلك انت كهو سيدان أقول صحيح سن كتابك إلهي قرآنك مركا لغا ريبو كتابك أسباب وكو قريب باب هبة المرأة باب كان وقو كهبلا إسلام تنين بحكرته لغير زوجة من كذا قفان هين ولبا سيكرته وإذكها أين حريكرته الدومة بيبه إذا كان هذا زوج حتى من ولبا لا رهي فهو عمل كاسل جائز وأبنائي إذا لم تكن سفيهة حتى سفيهة عين سفيه وحل رقفك مالك كبحية مالا صحة عين سفيه كاساليرا مالا حرام تقفك مالك كبحية شرع ما أقول قفك مالك إلا الداية دي ماشي الدولة صحي الإسلامي يكجرته وإن ماملك اللي قد تشوش يقف كاسو كلا مالك بعضيني فإذا كان سفيهة لم يجوز لكن هذه سفيهة ما ظنانا قال الله تعالى ألا يري ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفهاء هو من قاطع مالك كو عياره دي من مالكين أمواش الشيء أنا وهمتدو دي حافظ من حاجة الملك شرح يوحو يري وبهذا الحكم قال الجمهور علماء محنا كدوساس يرادين قبضوا مال كذا وبحي كرتا ايوه منك لا تشان منك لا تشتا وونا مركز وأدلة الجمهور من الكتاب وسنة كثيرة أدلة الجمهور تدريشدين الكتاب كإلهي كتالا أما سنة النبي عدين إيسو وشيء إذا إنه قبضوا مال كذا ما مركب ايوه منك لا تشان أدبا يفر بلانتا أدلة أسأل أفرها بلان وحاكمت أدلة أفرها بلان وحاكمت حديث كأسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق زبير بن عوام أياخذي رضي الله عنه وعشرة المبشرين بالجنة كمت نبي ويديدي صلوات الله وسلام عليه وحيتري يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل علي زبير أفتصدقوا رسولك لو مال مريه زبير وحي كان معهنه اما صدقي سكرا وحاسو اسيو قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك نبي صدقيسو مالك هايسنن يا الهي كعشري الهي وين يوسن كعشري عن تفر ومساكين توحسي حديث كان البخاري ومسلم وريه نقول لا تشمت بهم وحي تصيدا قبض حتى تصالح حتى يسن عبور لهين بيل لسيو بيل كده سيده نينكينا waa maqay tusaaleh si alla sida doontay u maamula karta baalki milkida haduu joogo laakiin hadda labadooda wadanaha waa inay ku dadaasho haday caruur joogto waa inay caruurti dar yeesho oo caruurti inay baabado gabadhina maalki meel kale geeyda sax noqon markaas illa caruurti xaqoodii dayacmay markaas musiiba dhacday
laakiin biilka ayada shakhsiga nafteeda ay u leedahay si alla siday doontay ugu maamulan kartaa waxaa lamid a axaadiista tusayda gabadhu maalkeeda inay maamulan karto iyadoo zawjka la tashan zawjadii nabigeena sala allahu calayh wasalam maymuuna bint alxaaris umulmu'miniin addoon ay laheed ayay xoraysay ayadoo nabiga aan ka idan qaadan nabiga sala allahu calayh wasalam markii maalinkeedii uu u yimid ayuu tiri ma og tahay addoontii inaan xoreeyey markaasuu yidhi ma xoraysay markaasay tiri waa xoreeyey markaasuu yidhi abtiyaasha inaad siidaa kaaga si ajar badnaa leh ma uusan dhihin adoon ila tashan see maalkaaga u maamusho ma uusan dhihin haddii marka aysan banaanayn inay maamusho nabigu waa u sheegi lahaa baadil kuma daayeen laakiin inay banaan tahay gabadhu maalkeeda inay maamusho ayaa xadiidkaasu caddaynaya xadiidkuna bukhaari iyo muslim uu ku sugan yahay xadiidkuna bukhaari iyo muslim ayuu ku yaallaa ahlucilmiguna sidaas ayay uga fahmeen xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi annahaa kaanat rashiida maymuuna gabar toosano maalkeeda maamula kartay aheed wa annahaa actaqad qabla an tasta'mura nabiya sala allahu calayh wasalam waxaynay xorayday iyadoo nabiga amar weydiin falam yastadrik daalika nabiguna arrintaas kama daba tegin oo kuma qabsan calayha bal arshadaa wuxuu ku toosiyey ilaa maa huwa awlaa si ka fadli badan falow kaana laa yanfudu lahaa tasarufun fii maalihaa la abdalahu haddaan gabadhu ninkeeda iyadoo la tashan maamulka ay maalkeeda maamushaa uusan soconayn waa nabigu buri laha wuxuu dhihi lahaa waxba kama jiraan xoraynta fatxulbaari buu ku leeyahay juska 5 safxada 259 imaam nawawi sharaxa muslimka wuxuu ku leeyahay asna wa fiihi jawaazu tabarruc almar'ati bimaaliha bighayri idni zawjiha xadiidkan waxaa ku sugan gabadhu maalkeeda inay tabarruci karto bixin karto ayadoon idanka zawjkeeda qaadan ala kulli xaal adilladu aaday u badan tahay waxaa kamid ah xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiisi jaabir ibn abdullah maalin ciida nabigu inta yiri gabdhaha war wax sadaqaysta ayadoo goobtii ciida joogo raggoodii u tagin oo la tashan ayay dahab bixiyeen oo hantidoodii wax ka sadaqaysteen ka adillada aad u fara badan xadiiska bukhaari muslim asna warinaya imaam nawawi wuxuu leeyahay xadiiskaas waxaa ku sugan gabadhu maalkeeda inay sadaqaysan karto iyadoo idan ka qaadan ninkeedii marka adilladu aad u badan tahay adilladaas oo dhan ayaa tusayda gabadhu maalkeeda inay maamula karto xadiidkan marka waxa lagu fasirayaa sida wanaaga badana sidaas inay ninkeeda waxa weeyaan la tashato ayaa fiicnaan badan laakiin haddaysan la tashan maamulkeedu waa soconaa ee ma la dhigi karo ma bixi kartid maalka maamulkeedu waa soconaa ilaa maalka ayadaa iska lehe baabu khidmati lmar'ati gabadhu inay u adeegto baabkii ka hadlayay lisawja ninkeeda iyo waman dadka yacuulu u biilo baabu khidmati lmar'ati haadaakanu baabu khidmati lmar'ati islaamtu inay u adeegto lisawja ninkeeda iyo waman dadka yacuulu u biilaa baabkii ka hadlayay hada maxalu baabkii ka hadlayay halkan way maxalkiisii macnahan xadiidka soo socda macnihiisa weeye wuxuu cadaynayaa xadiidkan soo socdaa gabadha ninka wanaagga ay kula dhaqmayso waxaa ka mid ah asaga iyo dadku biilayo gurigeeda ku nool inay u adeegto oo nadaafadii guriga iyadu ay ilaalido oo dharkii iyadu ay mayrto oo raashinka iyadu karido oo carruurtii ay haydo shaqadaas oo curfiga loo fiirina curfiga waxaa la yidhaahdaa dadka muslimiinta meeshaas degan shaqada ay qabtaan dumarku gabadhaas inay qabataan laga rabaa dadka muslimka ah meeshaas degan shaqada ay qabtaan gabdhaha muslimaadka ah ragga u dhaxay shaqadaas oo kala gabadha laga raba inay qabato curfiga iyo caadadu siday ku dareersatay ninkana shaqadii ragga laga rabaa oo inta shaqo tago inuu biilkii keeno gurigii lagu noolaa keeno waxa weyn dharkii keeno waxa weyn waxa ragga laga sugo dhan uu istaago sidaas weeyaan عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله وحو وريي الى رالا كنودا سغي ابيس قال وحو يري هلك ابي يا دنتي هلك ما تلولا جيدا هلك ابي يا دنتي وترك وحو كتغي 7 بنات 7 غبدود او 9 بنات اما 9 غبدود فتزوجت وحن سو غورسداي يري امراه غبر اسلام تاسو طيبا غراب اسلام غراب ان سو غورسداي markan soo guursaday faqala li rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu ugu yiri sallallahu alayhi wasallam
rasuulka allah wuxuu yiri tazawwajta ya Jaabir Jaabir ma guursatay Jaabir ma guursatay faqultu waxaan yiri nacam waa guursaday faqala nabi wuxuu yiri bikran am thayiba ma gabar bikraha guursatay oo lagaaga horeeyay mise mid garoob ah oo lagaaga horeeyay qultu waxaan yiri bal thayiba ma garoob guursaday qala nabi wuxuu yiri فهلا جارية تراعبها وتراعبك وتضاحكها وتضاحكك فهلا جارية ومحاد قرسوه قبرير قبدا سيرو تراعبها أدلع عيارته وتراعبك أدلع عيارته وتضاحكها أدلع تصوشه وتضاحكك أيضنا كلا تصوشه قال وقري فقلت وحان إري قال جابر وغيري فقلت وحن كوري له النبي إن عبد الله وأبيس إن عبد الله أبي عبد الله هلك ودنتي وترك وحنا كتغي بنات قبله وإني أنيق كريت وحن معي أن أجيئهن إن قبله أكينا أولا إماده بمثلهن قبرها المتأة وأيضا كدئة ونك عقل بدنين ونك وهي أركسنين تاس أيام لبصري فتزوجت مركزا قرسدي امرأة إسلام oo garoob ah islaamtaasoo taquum u istaagta calayhinna gabdhahan daryeelkoodii tarbiyadooda oo wa tuslihuhunna hagaajido tarbiyayda faqaala nabigu wuxuu yiri baarakallahu laka ilaaha ku barakeeyo oo qaala nabigu wuxuu yiri khayran khayr allah ku siiyo bukhari iyo muslim ana xadiidka wariyaan bukhari iyo muslim ayaa xadiidka wariyaan muttafaqun alayhi bukhari iyo muslim xadiidka isu waafaqeen عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيدي بيس إلى راليها كان نقضيه قال جابر وحيري هلك أبي أيات بنتي وحل قد لي دقالك أحد أيات قد لي أبي أيات بنتي ويري ودقالك أحد اللي قد لي وترك وحو كتغي 7 بنات تضوق قبضات أو 9 بنات وشكل راوي هواده دمور وريان شكيين جابر اسو ما شكيسنا ويقان قبدا ابيس كتغي انت يهين تضبع انا سغال فتزوجت انا وحن سو غورسدي امراه اسلام تو طيبا غراب oo way arag oo ka daaway oo sabarka gara karta gabdhuhu maxay u baahan yihiin iyo tarbiyadooda marka guurka marka la guursana dana badan loo guursadaa waxa uga hor kamid waxa weeyaan ifo iyo dhowrsanaan gabadhan iyo ninka isguursanayna isku dhowrsanaadaan waxa kamid duriyad dayba ilaahay inuu kala siiyo waxa kamid hawlo aan waxa weeyaan uusan kaliis qabsan karin gabadh inay la qabato marka guurka un hal dana ma ahan سيتتي هذا وحو كخشي وحوين قف وي ارق قف او وحوين كدوين قبلها او شقدان كغعن سيده عرورتان او تربييدا ساس او سو خشي او غوسري فقال لي رسول الله رسولك الله يقول صلى الله عليه وسلم تزوجت ما غورستي يا جابر ما غورستي فقلت وحنين نعم ها وين غورستي فقال النبي وحول بكرا ما قبر بكرا لغاقه هرينة غورستي ام ثيبا سي قبر قرابه لغاقه هرينة قلت وحنين ربال ثيبا ما يقرابه غورستي قال النبي وحول يري فحلها جارية حاد غورسوه إلي قبرية قبر يرو تراعبها أطلع عيارته وتراعبك أو كلا عيارته وتضاحكها أطلع قصوشه وتضاحكك أو كلا قصوشه تنا واحد تسيدا منك يحاس كيسة إلي عياران oo waxa weyn isla qoslaan oo ay sidaas u tahay dhaqan wanaagsan nabigeena sallallahu alayhi wasallam Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq zawjadi ummul mu'minin nabiga uu la ciyaari jiray bal la tartami wuxuu dhijin aan tartamo bal horta qofka dheereeyaan kala harnay ayuu ciyaar siina waa nabigi alle waxa dareemaydan in misan mas'uuliyad sugayda ummadoo dhan waa imaamkoodi diinku baraya xukunku u haya maamulka dhan uu haya asaga kala hagaya waqti ka batay oo firaaqad ma hayo laakiin waqtigiisu inta qayb ka qoondeeyay uu gabadhaas qalbigeeda ku farxad gelina waa dhaqanka laga rabo ragga mu'miniinta inay nabi maxamed ku daydaan sallallahu alayhi wasallam kaasoo kaalan tartamiyo kaasay tartaman kaasay ka dheerays ayaan dabo ilaahayna keen dana waa tartamaynaa kaasoo ka dheeray yees xumaynu isleey la iyadu ayasiina farxad gelina markaasuu tilka bitilka ha xumaan hadde adoo iga dheereeyay qofwa maalin dheerayna saasu nabigu sallallahu alayhi wasallam had ciid ciyaaraya
ayay nabigu yiri mar rabta inaad fiirsato oo masaajidka dhexdeeda ku ciyaarayo gaashaamo iyo ku ciyaareen ma baroorileey oo inta tafaxaydatay awradu banaanka taalamaan qurunka ma banaana kuwaas in la fiirsado waxa way reeg masaajidka dhex joogo oo muslimiin ah oo gaashaamo iyo warmo iyo isku la ciyaarayo ku gabgabanaya markaas ay tiri waa rabaa inaad fiirsan kaas isku kay aadin ma ku ku arag fiirso kaas iska fiirsanay haye ma ka bogato ma yaabara si fiirsan ilaahay ka bogatay marka ciyaarsiinta gabadha ninku inuu ciyaarsiyo farxad geliyo oo qalbigeeda ilaaliyo xuquuqda ragga lagu leeyahay ayay kamid tahay gabadhuna ninkeeda la ciyaarto farxad gelido ayadana xuquuqda laga rabay kamid قال جابر وحوري فقلت وحن كوري له النبي إن عبد الله أعطيه عبد الله هلك ودنتي وترك بنات قبلوه كتغي وإني أنك كريت وحن معي أن أجيئهن إن أكينا ولا إماده بمثلهن قبر أيدي لمد أيدي قبر لمد ومعنى كدئة إلا قبر يهدوك أنا قبر قبليه يراي لمد كما عقل بدنا كما واي أرك سنة تاسم لبصدير مركفيري ولا الكاس وناجيسه asaga gabar yar inuu doorto wuxuu uga tanaasulay gabdhaha walaalihiisa xaqooda inuu gabdhaha walaalihiisa u daneeyo saas u doortay taasna waxay ku tusaydaa gabadha yar guurkeeduna maratan ku jirtaa gabadha garoobka guurkeeduna maratan ku jirtaa oo mid walba faa'iido gaar ah yeelan karta fatazawwajtu waxaan soo guursaday uu yiri imra'atan islaamto taquum u istaagta calayhina arrimooda u istaagta tarbiyada u shanlayda waxa weeyaan wanaagooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ilaalida oo wa tuslixuna iyo hagaajido iyo tarbiyada marka hooyada guriga caruurta gabdhaha xilka koobaad ugu horeeya ayadu ka saaran nabigu marka arintaas kuma inkirin markuu sheegay inuu maslaxada uu doortay garoobka nabigu waa ugu duceeyay waa qiray arintii waa qiray faqala nabigu wuxuu barakallahu laka ilaahi aku barakay aw qala nabigu wuxuu khayr allah kusi khayr allah kaasi nabi arintu waa qiray meesha marka xadiidka laga daliishana fiiri gabadhu inay ninkeeda u shaqeydo oo ay u qitmaydo meesha laga daliishana waa halkee gabadhan muxuu u soo guursaday Jaabir inay gabdhahan u tarbiyaydo oo u haydo oo ugu shaqeydo saas uu soo guursaday nabigu arintu waa qiray marka inay sax tahay ay ku tusayda inay sax tahay ayay ku tusayda arintaas xadiis aad u farbadan tusayda macnahaas xadiis aad u farbadan tusaale waxaan soo qaadaynaa bal laba xadiis oo kale حديثك فاطمة بنت رسول الله فيري فاطمة بنت رسول الله او زوجة علي بن ابي طالب معه علي بن ابي طالب حاسكي سيئه ويوقت ما جرتي راشنك ايدا شيد جرتي دغ شيد او راشنك لو شيد ايدا وريجين او كشيد جرتي markaas xataa gacanti ka xanuunsan markaas waxay maqashay nabiga adoon u yimid oo adoon u yeeshay nabiga markaas ay u tagtay nabiga aaday oo istirba adoonkaas habku siiyo si uu shaqooyinka gabal kaaga qaado markay aaday nabiga maqanay tagtay Aisha u tagtay markaas ay tir u sheeg arintaas nabiga ugu yimid nabiga markuu u yimid Aisha loo sheegay leeyahay gabadhaadi Faadima timid arintaas ay u socotay nabiga habeenkii sallallahu alayhi wasallam markii loo sheegay inta soo orday ugu yimid gurigoodii ay deganayeen Faadima iyo Ali ibn Abi Talib ayagoo waliba gobashoodii jiifka tagay marka nabiga u yimid istaaga doonaan nabigu waxay istaagnin in fariistalkiina ka soo dhexda ka fariis markaas nabigu yiri ألا أدلكما على خير مما سألتما ما وانا إنين شيئين وإنين كذا قير بدن واحد ويديستين خادون أتربتا قبريا كان نصيدا شقدا وقادون كذا فعن مكو شيئا مركا نبي يري مركا إذا أقلتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما مركا مياشا تشيف كتكتان وتسيحر ربطان فصبحا 33 واحمدها 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم مركز جوجش تكتان صدم يصدح قال سبحان الله إله صدم يصدح قال الحمد لله إله صدم يعفر كبير الله أكبر بقول كاس أقرية قادون أيضا خير بدني وحويان إلهي باكو عن سيني إلهي باها شغادة فوضيني واحد من سهل يسكن نقريا إلهي وحقوق بقول قادون كوما قبكرتو taasna fursadaas waa in gabar kasta ay ka faa'iideysato xadiiska Bukhari Muslim wariyan labadaba waxa weeyaan marta hawsheeda guriga kulli danahaaga dhan Ilaahay inuu wala yasiro adkaartaas ku seexo marka gogasho tagto adkaarta ha iska halmaan 33 goor subhanallahi de 33 goor alxamdulillah de 34 goorna Allahu akbar de Ilaahay baa ku caawinaya hadii Ilaahay ku caawiyo cidna uma baahnid xadiiska kale tan baraarujayna waxay tahay
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأزوجته زبير بن عوام زبير بن عوام waxay tiri Zubayr ibn Awam ma uusan ahayn waxan ti'a wuxuu lahaa faras iyo rati oo beerta waraabiya intaas uu lahaa wuxuu lahaa Zubayr ibn Awam rati beerta waraabiya iyo wuxuu lahaa faras waxay tiri faraska ana quudi jiray u soo geedo gurmay jiray faraska ana u soo geedo gurmay jiray aniga awska u soo guri jiray aniga laftimireed uga soo qaadi jiray tiri madaxayga beerta Zubayr أنا بس وقاعد كذي ما علينا بقى أنا ما ذا حكوا سيدا النبي وقدم يبليت صلى الله عليه وسلم مركز ولي ماشي كنا واحد ترتال لما مايل أي ترتايتر ماشي كنا هل كم مايل واللي كن أردون هل كم مايل لما مايل أنك كذي ترى ما ذا حكوا سوقاري نبي قال ما علينا أنا ما ذا حكوا سيدا قدم يبليت مركز هش ولي فرسيوري سوق واحد حشول ما حيصير من ما نتراعي كرتا زبيرنا زوج كيجان أبو قرابنا قيرة دي سنوان طريمت قاسن حشولين نبيكم مركو حشول كيغا كوغا تغي marka ahadiithtaas waxay cadeynaydaa gabadhu zawjkeeda guriga inay uga shaqeydo urfiga iyo dhaqanka umada muslimka ku dhaqantaana la fiiriyo wixii gabadhu qaban jirtay waa inay qabato ninkuna wixii rag uu qaban jiray uu qabto waxyaalaha la qabtana la isla qabto la isla caawiyo oo la isgacan siiyo gabadha marka laftirkeeda hadii gabadha ayadoo kala qaadun iyo shaqaale loo sameeyo meeshaas ay joogto oo ninka dhaqaalihiis uu gaaro waxa raba inuu qaadun iyo shaqaale keeno illa ilaaha la waashiruhuna bil ma'ruf gabdhaha wanaag kula noolaada marka hadii ilaahay ninka uu waasiciyay ee uu dhaqaale haysto waxa laga rabaa inuu shaqaale keeno gabadha shaqada ka caawiyo taas ayaa laga rabaa wallahu